الرحمن الرحيم داوyaal halkan nagala socotaan barta youtube kulana cala 74 bost taariikhda maanta 25 bishii 12 waa maanay axada qodobada wararka caalamka oo kooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda Ruushia oo booqasho ku tagay warshada hubka soo saartay ku taala bariga dalkaas magaceeda markii la soo gaabiyo loo yaqaan Tula dowladda North Korea oo ku dhufatay laba gantaal badweynta dalka Japan oo saxaafada arrinkan ka saaraya Mareykanka wuxuu ka yiri sidoo kale qodobada wararka nugu waxaa ka mid ah dowladda Ruushia iyo Belarus ay wadeen weli sii socda hub casri halka lagu soo bandhigay dowladda Hindiya oo ku dhawaaqday in lacagteeda uga gadan doonto wax soo saarka dalka Ruushia sidoo kale Imaaraadka ayaa lisii ku soo biiray daawayaal meel baa joogtaan ku soo dhawaada warka caalamka anaan la socodsiinay Axmed Maxamuud madaxweynaha dowladda Ruushia ayaa booqasho rasmi ah ku tagay maalinkii shalay ahayd warshada hubka soo saarta marka la soo gaabay magaca loo yaqaan Tula halkaas oo lagu soo bandhigay hub casri ah ee ka mid yihiin dagaalka difaaca gaadiidka dagaalka ee ciidamada militariga qoryaha fudud garabka lagu qaato dadka diyaaradaha kuwa taangiyada daawayaal arrinkan wuxuu daba socdaa madaxweyne Putin iyo madaxweynihii hore dalkaas markay ballan ku qaadeen in la casriyeeyo hubka dalkaas uu soo saaro maadaama laga socday dagaalka dalka Ukraine ee sanadkan markay ay galeen bishii labaad oo hadda maalintii 300aad ee shanaad ee u gashay inay ku galeen hub duuga inkastoo hadda Ruushyaanka la soo baxay hub casri ah sidoo kale madaxweyne Putin ayaa aad u mahadiyay hubka dowladda Ruushia gaar ahaan ay sameysay warshada la yiraahdo Tula wuxuuna ku tilmaamay arrinkan inuu u noqon doono mid ay ku xisaabtamaan shirka soo socda ee dalka Ruushia wuxuuna ballan qaaday in dhaqaale fara badan la siin doono warshadaha soo saara hubka madaxweyne Putin arrinkiisa wuxuu daba socdaa asagoo muddooyinkan ugu dambeysay dhaqdhaqaaqa ciidan sii kordhinaya sida wax soo saarka hubka iyo tababar loo sameynayo dhalinyarada dalkaas ee Ruushia wuxuuna maandhow shir u qabtay oo ballan qaaday in ciidamadiisa la hormarin doono dhalinyaradana la maalgelin doono sidoo kale daawayaal arrinkan iyo dagaalkii dalka Ukraine uu sii daba dheeraaday Ruushyaankan wuxuu hadda isku diyaarinayaa inuu maaragtay hubkiisa casriyeeyo noocyada maaragtay gantaalada qaaradaha iskaga gudba kuwa maaragtay difaaca gantaalada ka hortaga taangiyada qoryaha BM-ka kuwa fudud kuwa maraakiibta ay qaadaan kuwa diyaaradaha lagu xiro waxyaalahaas oo dhan Ruushyaanka hadda wuxuu ku jiraa diyaar garow dalka Belarus maalinkii shalay ahayd Ruushyaanku wuxuu ku soo bandhigay taangiyo casri ah oo dowladaha reer galbeedka iyo gaar ahaan NATO midna aysan taangiyadaas oo afuufaya hub elektroniya oo weli hore loo arag dowladaha reer galbeedku markay arrinkaas ay arkeen oo saxaafadda ay ka arkeen aad bay maaragtay ula yaabeen waxayna ku tilmaameen arrin mucjiso ah madaxweynaha dowladda Ukraine asagoo safar ku maqnaa dalka Mareykanka afka ayuu qaylo ku shubtay wuxuu leeyahay waana la soo weerarayaa ciidda masiixiga lagu jiro daawayaal Ruushyaanka hadda waxay soo bandhigeen taangiyo casri ah oo weli noocooda aan hore lagu arag caalamka ama dagaal aan gelin halkan oo nii muuqata waa dalka Belarusia ciidamadii dowladda Ruushia iyo kuwii Belarusia dowladda military ku sameynayaan oo wada jira halkaas oo lagu soo bandhigay ciidan qalabeysan iyo hub casri ay wataan weli waxaa lala yaaban yahay taangiyadan oo maalmahan soo Ruushyaanku dagaalka weli aan gelin laakiin qaarna lagu soo bandhigay dalka Ruushia qaarna tababar iyo dowladda military ay ku qaadanayaan ciidamadiisu Belarusia arrinkan reer galbeedka ilaa iyo hadda way la yaaban yihiin maadaama marka hore dagaalka aan lagu arag taangiyo casriya iyo diyaarado casriya sidoo kale diyaaradaha Ruushyaanka ee Sukhoi 57 iyo Sukhoi 35 ayaa iyaguna dagaalka soo galay magaalada Kherson dhaawacyada iyo meydadka waa la kala guraya ilaa iyo shalay inkastoo saxaafadda reer galbeedku warka ay soo tibin laakiinse ay soo qaateen duqeymo loo geystay magaalada laakiin dhaawacyada meydadka ay soo gudbin Ruushyaanku sidoo kale wuxuu ku hayaa duqeyn aad u fara badan oo 24 saac iyo 7 iyo wiigiiba oo maaragtay aan kala hareen magaalada Bakhtum warka magaalada Bakhtum waan niisoo gudbin doonaa warka xiga daawayaal raalli ahaada sidoo kale dowladda Hindiya ayaa soo bandhigtay cudud ciidan maalinka shalay ahayd
taangiyo laga yaabay iyo ciidan maaragtay aad u fara badan iyo qalab casri ah. Dowladda Hindiya waxay ku dhawaaqday oo tiri dalka Russia markuu dagaalku galay annaga Russiaanka waxaa naga dhexeeyay xiriir aad u dheer oo boqolaal sana waa dhaqan baa naga dhexeeya. Waxay ku dhawaaqday oo garab istaagtay markii dagaalka bishii February uu galay Russiaanku inay maaragtay u heliyaan oo reer galbeedka cunaqabateynta kusoo rogeen dhinaca laga saaray qaybtii lacagta marka laga saaray xagga bangiyada systemka oo reer galbeedka maamulayeenna Swift loo yaqaano ayaa Hindiya dowladdeedu waxay go'aansantay inay ku gadato lacagta rubiga wax soo saarka dowladda Russia sida shidaalka iyo raashinka iyo waxyaalaha kala duwan oo Russia ay soo saarto. Marka arrinkaas waxaa dhaqan geliyay 9 bangi oo dalka Hindiya ka mid ah shalay ayay ku dhawaaqeen, laakiin arrinkaas hirgelin doonaa ama dhaqan galaysaa bisha January soo socota haddii Allah idmo oo bishan hadda ka dhimantay toddobaadka. Dowladda Hindiya aad bay u garab istaagtay daawadayaal dalka Russia. Waxaan ogtahay Russiaanka inuu saaxiib dhow leeyahay muddo dheerna ay xiriir ka dhexeeyeen dalka Hindiya. Hindiyaanka waxay leeyihiin annagu xiriirka aan la leenahay Russiaanka ma jiri doono, waan sii kordhinaynaa. Arrinkaas waxay dhabarjab ku tahay dowladda Mareykanka oo lacagta doolarka adduunka ku haysatay oo sidoo kale Carabaha ama shidaalka haddii waxaa lagu kala gadan jiray la yiraahdo oil dollar. Qofka shidaal gadanaya caalamka waxaa lagu kala gadan jiray dollar. Hadda Hindiya hadday shidaal u baahan tahay waxay kusoo gadanaysaa dollar. hadday Russia baawur uga baahan tahay biro hub uga baahan tahay dollar bay kusoo gadanaysaa. Sidoo kale Russiaanku hadday Hindiya wax uga baahdaan waxay kusoo gadanayaan lacagtooda. Marka arrinkan wuxuu dhabarjab ku yahay dowladda Mareykanka wuxuuna wiiqayaa dhaqaalahoodii iyo bangiyadooda. Sidoo kale dowladda Imaaraadka waxay ku dhawaaqday in ayaduna xiriir noocaas ah ay soo gabagabaysay maalinkii shalay ahayd. Hindiya iyo Imaaraadka inay kala saxiixdeen xagga iskaashi xagga militariga, xagga dhaqaalaha, lacagta Imaaraadka in maaragtay wax looga soo gato Hindiya. Lacagta maaragtay Hindiya rubiska la yiraahdana in wax looga soo gadan karo dalka Imaaraadka. Arrinkan oo guul u ah dowladda Hindiya, dhaqaalaha Hindiyana waa maaragtay wax ka taraya iyo wax soo saarka dalkaas. Sidoo kale dowladda Hindiya waxay u fududeynaysaa in lacagteeda wax looga soo gadan karo dalka Imaaraadka. Daawadayaal dowladihii reer galbeedka hadda waxaa moodaa in maaragtay laga qalab aruursanayo oo arrinkooda lagu fahmay filimkoodii muddada dheer maaragtay qarnigan hadda lagu jiray kii horeba caalamka beenta kusoo wadeen hadda laga baxayo. Sidoo kale waxaa ogtihiin in la yiraahdo ururka BRICS in dhowaan maaragtay ay kusoo biirin doonaan dowladda Sacuudiga iyo Turkiga lacag cusubna la sameyn doono. Ururkaasna waxaa ka mid ah dowladda China, Russia, Hindiya, Venezuela, Iran iyo South Africa. Haddana waxaan kusoo biirin doonaa dalka Turkiga iyo Sacuudiga. Waxayna samaysan doonaan hal lacagtaasna waxay sahlaysaa inay wax ku kala gataan qowmiyadooda ama shacabkooduna ay isticmaalaan. Arrinkaasna oo dhabarjab weyn ku ah dowladda Mareykanka hoos u dhacna u keenaysa dhaqaalaha dalka Mareykanka iyo lacagtiisaba. Sidoo kale daawadayaal dalka North Korea ayaa 2 gantaal ku dhuftay dalka Japan. Japanese-ka oo maaragtay wacad ku maray in dalkiisa uu difaaci doono ayaa waxaa hadlay wasiirka xigeenka wasiirka difaaca ninka la yiraahdo magaciisa Toshiro. wasiir difaaca dalka Japanka ayaa sheegay in 2 gantaal ay kusoo dhaceen oo soo riday North Korea oo ballistic missile loo yaqaano. Wuxuuna uga digay arrinkaas amniga caalamka ayay khatar ku tahay buu yiri iyo amniga gobolka. Waxaana ka codsanaynaa buu yiri in arrinkan la soo farageliyo mana aqbalin doono dandaas dagaal ayay arrinkaas u egtahay. Wuxuu yiri wasiirka difaaca Japanku waa in arrinkan wax laga qabtaa. Sidoo kale afhayeen u hadla xagga aqalka cad arrimaha nabadgelyada ninka la yiraahdo magaciisa John Kirby ayaa ku tilmaamay arrinkaas mid aan la dul qaadan karin haddii ay sii wadaan dowladda South Korea dandaasiga ay ku hayaan dalka Japan. Wuxuu yiri afhayeenku raallahada haddii ay sii wadaan dandaasiga ay ku hayaan dowladda Japan dowladda North Korea gantaalada marwalba ay kusoo ridayaan dalka Japan jawaab ayaan ka bixin doonaa. John Kirby ayaa u digay madaxweynaha dalkaas North Korea Jim wuxuuna yiri haddii ay sii wadaan in badda Japan gantaal lagu dhufto South Korea gantaal lagu dhufto waxaan qaadan doonaa buu yiri jawaab ayaan ka bixin doonaa tilaabo ayaana qaadan doonaa. Sidoo kale daawadayaal diyaaradaha daroonka
suusadka loo yaqaano dowladda hadda Russia la soo baxday inkastoo reer galbeedka leeyihiin waxaas ku caawiyay Iran ayaa waxaa la arkayaa ayagoo duqeynaya kontaroolada baraha ay fadhiyaan ciidamada Ukrainiinta halkaas oo ay ka dhigeen dukum dakum waxa allaalay wuxuu ciidan fadhiyana ay ku baabiyeen iyo qalab ay ku haysteen diyaaradahan waa la calimi waayey waa la qaban waayey waa diyaarado drone si ay u soo socoto sida gantaalka ayay baabi'inaysaa bartilmaamkii liishka ama meeshii loogu talagalay bartilmaamka marka daawadayaal diyaaradahan Ukrainiinta ilaa iyo hadda 4 bilood ugu dambeysay 3 bilood ayaa waxaa isticmaalayay Raashiyaanka magaalada Bakhtum loo yaqaano ayaa maaragtay waxa ka socda dagaal aad u xoogan warkan ku xiga ayaan kusoo qaadan doonaa daawadayaal meel walba joogtaan waa mahadsantihiin waxaan iga codsanayaa inaad barnaamij share gareysaan asxaabtiina la wadaagtaan like iyo share-na saartaan sidoo kale magaalada Bakhtum waxaa ka socda dagaal maaragtay faraha loogu gubtay warkan ku xiga ayaan kusoo qaadan doonaa 24 saac iyo ama wiigiiba wax maaragtay xabada oo maaragtay joojina kama socoto habeen iyo maalin duqeynta iyo rasaasta waa socotaa waan lagu baabaa dhaawaca midku marka Raashiyaanka daawada dagaalka uu ka bedelay sidii hore u socday ciidankiisa ka soconayay hadda Raashiyaanka wax la soo baxay diyaaradaha drone-ka oo duqeynaya bartilmaameedka ay fadhiyaan ciidamada Ukrainiinta sidoo kale waxa ka qayb galaya maraakiibta maaragtay oo gantaal soo ridaya iyo diyaaradihii dagaalka casriga ah sida Sukhoi 57 iyo Sukhoi 35ka sidoo kale daawadayaal Raashiyaanku ciidankiisa markay magaalada ay baabiyaan oo dhulka la simaan ayay gelayaan marka arrinkan waxaa ka dambeeya jarnaalka cusba oo dhawaan soo magacaabeen dowladda Russia